بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan ka jawaabo shirkadaadka ay ku qabteen hoteelka Gacayte dawladdu arrintaas ay kaga hadlayeen BSF sida ula socotaan ciidanka BSF wuxuu ka soo guuray galgala iyo Sugure sababta ugu soo guurana waa idin sharxayaa muddooyinka dambe dawladdu waxay lagu noo soo direysay ciidamo fara badan oo ay jidgooyooyin iyo hujuun iyo caburun ay lagu waday ciidanka BSF waxa loo soo diray ciidamo la dhigay jidka Sodonka madaxtooyada laag iyo meelaha la midka ah si ciidanka BSF ee furmaha jiray kuwa boosaas degan loo kala gooyo waxa dhacday in gaarigu ka soo baxay taganika magaalada xarunta Sugure ee difaaca Sugure gaarigaas soo waday nin xanuunsan markuu marayo controlka boosaasood waxa loo sameeyay jidgooyin ma gudbisid baa lagu yiri ciidankii waa yaabay sababtaan ugu gudbeen maxay tahay markay yiraahdeen ka bacdi wada hadal kadib waa la sii daayay ciidanka BSF ee furmaha jiray markii ogaadeen gaarigii ninka xanuunsan sidoo la celiyay ay kala ogaadeen in xaruntii magaalada Boosaasood ciidamo lagu caburiyay bay waxay ka soo baxeen galgala iyo Sugure ciidankaas lagu caburiyay Boosaaso xerada ku taala hoteelka BSF-na waxa la dhigay galgala meesha la magaceeyo laag isa saaraha madaxtooyada jidka Sodonka iyo meelo la mid ah sidaas darteed shacabka Puntland wuxuu ogsoon yahay ciidanka BSF inay ahaayeen kuwii muddada faraha badan ee xilliga dheer ka difaacay dalka cadawgaas oo ahaa argagixisada al-shabaab iyo daacish ee degan buuraleyda calmadow iyo calmiskaad sidaas darteed uma dulqaadan kara anagu in ciidamada ku soo caburiyo anagoo ah halgamayaashii dalka difaacay oo u dagaalamayay inta markii ciidankaas halkaas yimid waxay ku soo laabteen xarumahoodii waxay si maxalli ah u degan yihiin deegaamadii ay ku lahaayeen magaalada Boosaasood shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa ciidanka BSF inaysan wax dhibaato ah iyo khalaan khalqa iyo dhiba midna ku wada shacabka Puntland iyo ciidamada Puntland midna waxaan kaloo u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo BSF inay yihiin walaalihii ka wada halgamayay buuraleyda difaaca dalka oo ayagu ahaa reer wadaag inaanan xukuumi karin waxbad ku ridi karin ciidamada Puntland ayaguna aysan ugu soo ridi karin taliyaha ciidanku waxay walaashintu sheegay inuu u yimid halka kan isaga iyo wasiirka amniguna waa mid sharciga baalmarsan ciidanka BSF hore u qaadaceen waxa kaloo jira ciidanka Puntland waa ciidan arrimo siyaasadeedna ma galaan kamana shaqeeyaan cidii isku dayday inay arrimo siyaasadeed iyo burburin ku sameysana uma dul qaadanayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa halkan inaan kaga jawaabo shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay wasiirka amniga ee Puntland hotel Gacayte waxyaalo badan oo uu ka hadlay oo aan anaga nagu ahayn wax munaasib ah waxa koow ka ah waxaan u sheegayaa shacabka Puntland BSF saxaafadna ma ay caburiso mana boombooniso waxaan jirina kama ay sheekayso shacabka Soomaaliya iyo shacabka Puntland ba waxaan u sheegayaa BSF inay kalsooni buuxda ku qabaan ayna yihiin dad u shaqeeya ciidan u shaqeeya dalka iyo dadka kana difaaca cadow kasta oo argagixiso ah oo soo wajaha qodobka labaad oo uu ka hadlay doorashooyinka ka socda Boosaaso ama gobolka bari qodobkaas waxaan kaga jawaabayaa BSF doorasho ka dhacda Puntland madaxweynayaal badan iyo maamulo badan baa soo maray oo ayan ka qayb gelin amnigoodana ayan sugin si qurux badanna ayan u qaban ma jiro doorasho kasta oo dhacdana BSF si wanaagsan oo amniga ay wax uga sugaan oo ay si walba shacabka iyo dadka la dooranayo iyo kulliba ay ku qanacsan yihiin ayay uga shaqeyn jireen haatana ay diyaar u yihiin anagu doorashada ka socota Boosaaso cidda khalkhalka ku wada anaga ma aha waa wasiirka amniga ruuxiisa ciidamo badatay wuxuu soo dhaway magaalada awalna ciidamo hore oo buuxay ayaa jiro ka buuxay ciidan BSF ciidan BMBF ciidanka booliska boqolaal kun oo ciidamo oo jooga ayaa ciidamo kale waxa laga keenay dibadda
laakiin ma ayan ahayn ciidamada dibadda laga keenay ciidamo loo wado doorashooyin ama amniga doorashooyinka in lagu sugo shacabka Puntland BSF inayan siyaasadna gelin ciidan ku milma siyaasadda ama siyaasad ka shaqeeyana ahayn waxa ay dowladda Puntland ku raacaysaa agaasimihii hore ee BSF oo wuxuu ku jiraa siyaasadda Puntland isaguna min xoog wax ku doonay ma ahan waa nin shacabka Puntland oo dhan ay ogol yihiin in marka waxyaalo siyaasad ah lagu baabiyo laguna la dagaalamo ciidanka BSF oo ah ciidanka kaliya ee difaaca cadawga al-shabaab iyo Daesh iyo cid kasto argixisa oo Puntland ku soo duusha qodobka saddexaad oo aan ka hadlayo waxa weeye ciidanka Puntland iyo ciidanka BSF waa dad walaalo ah isna yaqaan mudooyin badanna wada galay dagaalo ma aanahin anagu kuwa ciidanka Puntland isku baabiin lahaa cida wada in ciidamada ay iska hor keento oo meel walba ciidanka dhigtay oo jidka sodonka madaxtooyada bundajiifta hubaalka shaysa ilaa laag ilaa iyo kantaroolka oo la yiri ciidamada BSF ma ay gudbi karaan xaqna uma socon karaan horeyna uma socon karaan cid amarka bixisay waa dawladda Puntland cid kasta ha u bixiso ama taliyaha daraawiishta oo gamaanta shir jiraad ka hadlaya ha bixiyo ama ha bixiyo wasiirka amnigu annagu wali talaabo khaldan oo ciidanka Puntland aanu kaga hortagayno ama aan dib u geysanayno kamana bixin amarka kuma aanan bixin mana aanan samayn shacabka Puntlandna ma aanu rabno inaanu inta ileego waxyeelaa aanu geysano waxaan u sheegayaa shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland ciidanka BSF wuxuu ahaa ciidanka kaliya ee ka shaqeeya la dagaalanka argagixisada Soomaaliya baa loo oran karaa xataa laba oran karo Puntland sida la ajligeed sanad iyo 3 bilood ciidanka Mareykanka ay wada shaqeyn jireen waa ay ka tageen ciidanka BSF kaliya ayaa wuxuu ku soo haray goobihiisa shaqada ee Puntland inta uu shaqeynayna sanad iyo 3 bilood maalin shaqadu inay si laba laamato ma ahan dib dhac kuma u sanima waxa dhacday dagaalo badan oo ciidanka BSF galay oo Daesh iyo al-shabaab labada ay dagaalo la galay rag kaga dhintay rag kaga dhaawacmay jeelkii baa jiray isna dagaalkiisa ay galeen oo ay shacabka Puntland og yihiin si ula dagaalameen cadawga soo weeraray Boosaaso oo jeelka soo weeraray Daesh baa la aaday oo labada nin oo wasiirka amniga iyo taliyaha daraawiishta oo maanta iyo shirka jiraayad qabtay ay ciidamada wateen ciidanka BSF inay ku soo dagaalameen la soo dagaalameen ciidamada ugu horeeyeen rag badan kaga soo dhaawacmay ragna kaga dhintay dalacsiinta markaan kala hadlo wasiirku leeyahay waligiis BSF laba dalacsiin oo dibdhac ku yimi Faroole laba jeer 3 jeer buu BSF buu dalacsiin madaxweyne Faroole madaxweyne Cabdullaahi Ali Gaasna ilaa 4 jeer buu dalacsiin soo qoray ilaa min dable ilaa min sarkaalnimaan dalicin ma jiro intaasoo dalacaad aan haysano madaxweynaha kaliya aanan dalacaad iyo waa mahadsantihiin iyo waa fiicantiin toona aanan ka hayn waa madaxweyne Dani marka ila muuqato in ay tahay wax munaasib ah shacabka Puntland waa og yahay in inta ciidamo lagu soo kaxayo baatay oo la keeno Boosaaso wadooyinka la dejiyo la damco in BSF xoog lagu burburiyo lagu qabsado lagu la wareego maxaan ku yiraahdaa talisyadeeda arintaas arin aan qaadan karo ama aan yeeli karo maaha tan uu leeyahay wasiirka amnigu isma socon karo BSF shaqadeeda bay sii wadanaysaa waana soconaysaa shacabkana waa u shaqeynaysaa cadawgu meel kasta uu joogana waa ugu tagaysaa habeen iyo maalinna nin aanu kala tashanayno ama aanu kaga baqayno ma jiro in aanu cadawga ka hortagno sida aan u shaqeyn jiray baan u shaqeynaynaa dalka iyo dadkana dad u dhashay baan nahay ma ahin dad yimi oo la soo kireystay baahi